wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxa ay ka mas'uul tahay noocyada kala duwan ee gaadiidka dalka iyo wadooyinka oo ah kaabayaasha ugu waaweyn ee dhaqaalaha. dhinaca kale, hirgelinta wadooyinka iyo garoomadu waxay u baahan yihiin dhaqaale xoog leh. waxaan halkan idinku kula wadaagayaa qiimayn yar oo ay wasaaraddu samaysay qarashka ku baxa wadooyinka ee ku jiray NDB 2. waxaa lagu qiyaasay lacag ka badan 700 milyan, taasoo aan ahaynba miisaaniyadda waddankeenna oo dhan, iyadoo la eegayo awoodda dhaqaale ee Somalilan iyo baahiyaha kaabayaasha dhaqaale ee dalka. waxaa cad in Somalilan horumar la taaban karo ilaa xad ay ka gaadhay wadooyinka. waxaan tusaale inoogu filan in dowladdu Somalilan ay dhisatay waddada isku xidha gobolka Sanaag iyo Togdheer oo ka badan 285 kilomitir, oo iyada mooyaane cid kale ay ka helin wax caawimo ah ee ay ku bixisay lacagteedii. sida ku cad videoga daawan doontaan, wasaaraddu waxa ay qabatay waddooyin kala duwan oo yaryar oo ay bulshada ka caawisay, laakiin caqabadaha haysta haddaan soo koobo waxaa weeye gaadiidka dalka lagu isticmaalo oo ah mid duuga, kaasoo sababay khasaare naf iyo maalba leh. qodobka labaad waxaa weeye rarka xaddhaafka ee gaadiidku qaado oo khasaare weyn u geysta waddooyinka. ta saddexaad waxaa weeye siyaasadda gaadiidka oo aan noolahayn hadda iyo wax istaraatiijiyada toona, xeerka gaadiidka badda oo aan jirinba, maalgashiga caalamiga ah ee dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha oo yar. dekedaha Somalilan ma jiraan wasaarad ay toos u hoos tagaan, waa deked iska madax bannaan. xaddiga iyo adeegyada la doonayo in la gaadhsiiyo waddamada jaarka ah iyo awoodda gaadiid ee dalka oo kala duwan ama aad u yar. garoomada diyaaradaha oo aan lahayn hab wanaagsan, maamulka hawada Somalilan oo maqan, iyo qalabka maamulka hawada oo koobanba. haddaba maxaynu ka filanaynaa inay ka soo baxaan madashan baanalkan maanta halkan ku gorfayn doona kaabayaasha dhaqaale ee aan soo tiriyey ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. shirka dhaqaalaha oo ah kii ugu horreeyey ee laga qabto dalkeenna oo innaguna aynu maalgashannay. waxaan rajaynayaa waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo khubarada maanta fadhida in ay ka soo saaraan marka ay fikirkooda cabbiraan, maskaxdoodana tuujiyaan waxyaabo muhiim ah wasaaradda gaadiidka, horumarinta iyo jidadka. haddaba waxaan aad ugu rajo weynahay in aad si mugle iyo miisaan leh u qiimaysaan xaaladda kaabayaasha dhaqaalaha marka la eego xagga gaadiidka, garoomada iyo waddooyinkaba. ugu dambayn waxaan ku soo gabagabaynayaa baanalkan in ay wax wanaagsan ka soo saari doonaan. wasiir ahaanna waxaan u ballan qaadayaa khubarada joogta maanta halka qayb qaadanaysa inaan la shaqayn doono. wixii fikrada ay igu soo kordhiyaan maaha halkan keliya ee inay anigaba toos ila soo xidhiiri karaan, mar walbana xafiiska albaabka igu furan yahay. waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.